wixii shalay ka dhacay Gabiley oo aanu cambaaraynayno falkii foosha xumaa ee lagula kacay shacabka Gabiley taasoo ay ku dhaawacmeen tiro guud oo 15 iyo ilmo dhintay arrintaasi oo ahayd atrocide waxa suuq lagula kacay shacbiga reer Gabiley waa dambi laga galay shacbiga reer Gabiley waa arrin fool xumo ku ah muwaadinimada reer Somaliland iyo dawladnimada iyo qaranka Somaliland arrintaas waanu cambaaraynaa waa arrin aan hore u dhicin oo dawladihii hore aan ka dhicin waa arrin fool xumo weyn u soo jiidaysa ciidamada xataa sida loo isticmaalay awoodda la isticmaalay oo awood aad u weyn ah oo culus ahayd kana baxsan qawaaniinta caalamiga dadkaas shacbigii waxay ka mudaharaadayeen arrin ka dhacday jiida hore ee ciidamada saraakiil lagu laayay oo waliba ciidankaas labadaas sarkaal la dilay si qaldan oo sabotage ahayd oo fal shirqool ah lagu dilay waxa ayaan darro ah cidda mas'uuliyadda waxa soo abaabushay ciidanka ku soo dirtay dadka shacbiga ah halkii laga xasif fiican loo xalili lahaa taasi oo loo baahan lana joojiyo xataa odayaasha deegaanka ee madax dhaqameedka laga hor joogsaday iyagoo doonayay inay arrinta xalilaan haddii xisbiga wadani anagoo gudoomiye ku-xigeenada ka mid ah waxaanu cambaaraynaynaa arrintaas oo foolxumadaas aadka u foolxun ee ka dhacday shalay Gabiley waanu aad iyo aad baan uga xubnahay waxa kaloona taxsiin u diraynaa ehelkii iyo qaraabadii ay ka soo jeedeen saraakiisha lagu dilay jiida hore ee qaranka isla markaa shacbiga reer Gabiley dhibaatadii ku dhacday iyo geeridii ilmaha yar taa lafteeda waanu aad baan uga xunnahay waxaanu leenahay ilaahay haydika wax khayr ilaahay idinku bedelo wax loola haray oo cadaawada ma arkayno ilaahay baa bixiyay maanta inta dhibaatana Allah u naxariiso ilaahayna ilmaha yar ha ugu bedelo inta dhaawacana ilaahay ha u saalo xukuumaddu si tallaabada ay ka qaaday Gabiley waa tallaabo aad u fool xun waa tallaabo aanay geyn Gabiley oo ah meeshii xukuumaddu ay ku soo baxday ee Florida ahayd waa ayaan darro inay ugu abaalguddo rasaas iyo atrocide oo ah xasuuq waa codkoodii maanta waxa lagu dilayaa arrintaas waanu cambaaraynaynaa waanu ka xunnahay sidaas ayaanu u sheegaynaa shacbiga reer Gabiley waxaanu leenahay nabadgelyadiina ilaashada waana ilaahayna wax khayr ilaahay loogu bedelo. Assalaamu calaykum.